بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahad leh marka xigtana waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliland meel kasto ay caalamka joogan waxaan 23 Abriil 2017 aan u gudbiyay codsiisa casilaad madaxda xisbiga 26 Abriil 2017 ayaa mas'uuliyiinta xisbiga wadani ay ugu sarsareeyay codsigayga iga diideen aniguna waan ka aqbalay xisbiga wadani uma angalin inaan dulmiga u sacabtamo xisbiga wadani uma angalin inaan wixii aan ka diidi jiray xisbiyada kale isaga ugu gulwadeeyo xisbiga wadani uma angalin inaan qof ama qabiil ku xumeeyo xisbiga wadani uma angalin inaan qof ku raali galiyo ama ku boqro xisbiga wadani waxaan u galay inuu dalka keenay isbedel cad aan ku salaysnayn qabiyaalad iyo qole riix waxaan u galay inuu dalka la yimaado karti xilkasnimo iyo daacad iyo inuu shaqo abuur u sameeyo dhalinyarada dalka ku nool ee uu dilowday tahriibka iyo qaadku xisbiga wadani waxa iskugu yimid oo inta badan xafladaha loo qabanaya nimankii dhalinyarada Soomaaliland u horseeday dhibaatada iyo qabyaaladda iyo tahriibka intuu xisbiga wadani soo dhaweelayo qowleysatayaashii dalkan iyo dadkan aayahoodii cunay wax mustaqbal oo fiican ma laha waxa isbedelana ma keenayo si aan aaminsanahay anigu sidii dadyowgii Jarmalka ee 1998 u burburiyeen gidaarkii lagu kala ooday ee bariga iyo galbeedka ayay dadweynaha Soomaaliland u baahan yihiin in gidaarka qabyaaladda ee gobol kasta degmo kasta tuulo kasta iyo reer kasta ay ku oodan yihiin la burburiyo la qaado qabyaalad iyo qoloqolo waxba kuma heli karno adduunka waxaan wax kaga heli karnaa qaran midaysan oo la yiraahdo Soomaaliland waxa lagu jiraa waqti adag waayo qabyaaladii ayaa soo noolaatay waxa loo baahan yahay hogaamiye adag oo qaadan kara go'aan adag waqtigan adag awgeed aan ku soo gunaanado tuduc aan ka soo qaatay maansadii abwaan maxamed xaaji damac gaariye naxariis iyo janno allah ka waraabiye waxaru sidaan qabo waligood boqor qabad biyo kuma qorqoriyaan aniguna qiira mooyee qasab kuma balweyn karo ugu dambeyn oo ay taariikhdu tahay 28 July 2017 waxaan caawa iska casilay xilkii gudoomiyaha labaad ee xisbiga wadani laantiisa Jarmalka iyo xubinnimadii xisbigaasba wabillahi tawfiiq